kulanka maanta golaha wasiiradu saad la socotaan waxay kaga hadleen jariimo hadda ka hor dhacday oo loo geystay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan loo geystay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeynaya oo qayb ka ahayd ama ahayd cidii ugu dambeysay ee hadda waday halgankii soo jireenka ah ee ummadda Soomaaliyeed nasiib darro wixii hore u dhacay weyn ogeyn waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa aanu mahad celino ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisa oo maanta dib u buriyay qaraarkii xaq darrada ahaa ee xukuumadda golaha fulinta ee Soomaaliyeed uu qaatay 16 aan dhaho bishii 9 2017 qaraarkaas oo ahaa runtii qaraar ahaa jariimo laga galay ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa qaraar ka naxiyay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed argagaxana ku riday buu ahaa gaar ahaan wuxuu ku reebay dhaawac iyo boog dhiig baxaysa shacbigii ku jiray dagaalka ee Itoobiya gumaysanaysa oo wali si naas hayay halgankii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed ay ku soo jirtay ilaa qarnigii 16aad oo lagu shaabeeday iyaga iyo halgankoodii inay yihiin argagaxiso waa go'aan geesinimo leh oo uu qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golihiisa xukuumaddu waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa in maanta xukuumadda Soomaaliyeed inay qaadato qaraarkan lagu soo celinayo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed oo horay loo dhaawacay dhibaatana loogu geystay waxaynu ognahay qaraarkii hadda ka hor la gaaray 6 bishii 9 2017 wuxuu ahaa jariimo saan hore u sheegnayba wuxuu ahaa jariimo taariikhi ummadda Soomaaliyeed laga galay oo meel lagaga dhacay halgankii ummadaha Soomaaliyeed oo meel lagaga dhacay islaamnimadii oo meel lagaga dhacay ehelnimadii oo meel lagaga dhacay Soomaalinimadii oo wax loo reebtay ummadda Soomaaliyeed aysan jirin ummadda Soomaaliyeed waxay ku suntan tahay geeskan Afrika iyo caalamka waxay kaga suntan tahay ummad u soo dagaalantay goobnimadeeda iyo sharafteeda waxaan dhihi karnaa geeskan Afrika iyo dunida ku xorowday qori afki iyo xarbo Soomaalida ayaa bartay in qori la isku xoreyn karo waxaanu nahay caaradda gobnadoonada adduunka oo dhan baynu nahay dagaalkeena iyo halgankeenu mar walba hadaf buu lahaa hadafkiisu wuxuu ahaa in la xoreeyo qadiyadaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed hal qadiyad buu ahaa hal Soomaali baa jirtay 2 Soomaali ma jirin 3 Soomaali ma jirin 5 Soomaaliyeedna ma jirin Soomaali bay Soomaali weyn bay ahayd gumaysayaashii reer Yurub yaa 1884 yaa waxay u qaybiyeen 5 meelood u qaybiyay oo mid raaciyay Itoobiya oo xilliga Ingiriisku ku sii wareejiyay mid raaciyay Ishaq Talyaani midba meel raaciyay u qaybiyay Faransiis Talyaani Ishaq Ingiriiska intaas oo dhan aad garanaysaan u kala qaybiyay ummadda Soomaaliyeed in 5 laga dhigo iyo in 2 laga dhigo iyo in 3 laga dhigo midna tala lagama ogeysiinin waxna lagama weydiinin sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed markay aragtay sida loogu takrifalay quwadii xilliga jiray sharaftoodii iyo midnimadoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii sida loogu xadgudbay markay arkeen waxay qaateen inay u dagaalamaan soo celinta sharafta iyo xorriyadda ee ummadda Soomaaliyeed inay soo celiyaan bay qaateen qori bay ku bilaabeen markay wax kale oo dhan ku waayeen qori bay ku bilaabeen dhiig bay u daadiyeen dad baa u dhammaaday agoomaan wada noqonnay dhammaanteen waxaanu nahay awoowayaashaan ahaayeen aabbayaashaan ahaayeen agoontii halgamayaashaynu wada ahayn
nasiib darro kii ugu dambeeyey oo socda oo dhiiggii wali qubanhayo oo meydkii bannaanka weli yaallo oo muusanawga iyo tollaaydu ay socoto oo dariiqii ummadda soomaaliyeed ku heshiisay ee xoraynta qadiyaha la gumaystay ee ummadda soomaaliyeed ahayd yaa xukuumaddii xilligaa jirtay waxay qaadatay inay burburiso karaamadii iyo taariikhdii iyo halgankii ummadda soomaaliyeed inay burburiso ayadaa qaadatay waxay ku tilmaantay halgankii halgan argagixiso ah waxay ku tilmaantay halgamayaashii fidmo walayaal waxay u gacangelisay halgamayaashii cadowgii ummadda soomaaliyeed ee la dagaalamaynay ilaa qarnigii 16aad ee la wada yaqaanay cadowga taariikhiga ah ee la yaqaanay ummadda soomaaliyeed weligeed leedahay ee la wada yaqaanay la isku raacsan yahay haddaan idin weydiiyo waa kuma dhihi lahaydeen idinku waa Itoobiya wey oo la dagaalamaynay muddada intaa leeg kaasay u jabisay u gacangelisay markaasay waxay ku xukuntay in ay halgankan iyo halgamayaasha iyo shacbiga halgankan wadayba in ay yihiin argagixiso caalami oo u sharciyeyso macnaheedu ahaa meel kastoo lagu arko waa lagu dili karaa dad 10 iyo dhowr milyan yaa ilaa hadda xukuumaddii jirtay ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo golihiisii xukuumadda kan ka horreeyay waxay ugu xukunaayeen dil iyo baabiin bay ugu wada xukunaayeen haddii uu joogi lahaa halgamayaasha hore hadday joogi lahaayeen maxay samayn lahaayeen maxay ku xukumi lahaayeen waxay sheeganayaan wadaniyad waxay sheeganayaan iimaan waxay sheeganayaan soomaalinimo waxay sheeganayaan dadnimo haddii maanta sayid maxamed ay qaban lahaayeen maxay ku samayn lahaayeen hadday nasrullah 64 qaban lahaayeen maxay samayn lahaayeen 77 dagaalkii aynu galnay maxay u yaqaanaan axmed gurey halgankuu soo maray maxay u yaqaanaan owanalef maxay kaga duwanayd sidaa darteed waxaan innaba loo aabayeelin ummadda soomaaliyeed iyo halgankeedii iyo mabaadi'deeda xalaasha iyo jiritaankeedii yaa meel lagaga dhacay waxaan markaa u mahad celinaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo garatay inay dhaqdo boogtan inay dhaqdo inay daaweyso dhaawacan garatay maanta yaan u mahad celinaynaa si aan marnaba la qiyaasi karinna aan u soo dhowaynaynaa aad iyo aadna aan ugu faraxsannahay waxaan leenahay waxaad soo celiseen walaalayaal sharaftii ummadda soomaaliyeed hankii iyo isla weynidii ummadda soomaaliyeed damiirkii ummadda soomaaliyeed waxaad daaweyseen dhaawacyo dhiig baxa haya ummad baa maral u ahayd dunuubta laga galay shacbiga soomaaliyeed iyo jawrka lagu falay ee ay ku sameeyeen xukuumaddii ummadda soomaaliyeed ee loo igmaday inay ummadda soomaaliyeed karaamadeeda iyo qiyamkeeda iyo dadnimadeeda dhisto waxaa yaab lahaa 70 qof dad dhan oo dowladda soomaaliya xilligaa u talinayay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u talinayay inay isku raacaan inay qadiyaddii ummadda soomaaliyeed ku sheegaan argagixiso inay muwaadiniin soomaaliyeed oon weligood dalkooda dembi ka gelin wakhtigoodii oo dhanna dalkan geliyey dhiiggoodii u huray dadkoodii u baaba'ay loo dhiiba cadow ma ahayn oo keliyata wixii la dhiibay cabdikariin sheekh muuse keliya ma uusan ahayn waxaa jiray kuwo kale oo meelo kale laga dhiibdhiibayay xilliyo badan mar walbana kuwaas waan xusuusnaanaynaa iyo ciddii dhiibtayba waan xusuusnaanaynaa waxaan runtii rabaa inaan xuso xukuumadda xilligaas gashay jariimada intaa leeg ashkhaas ku jirtay oo aan mar walba aan doonayna si gaara inaan u taabanno oo ummadda soomaaliyeed ka mudan sharaf iyo xusid dheeraada mar walba sida doctorayso maryam qaasin oo aan naqaano halgamaa taariikhda ummadda soomaaliyeed beeldahaba ka galay sidoo kale wasiir juxo oo dadaal aad iyo aad u badan isaguna bixiyey dood badan bixiyey ololo badan sameeyey ilaa markii dambe isagu uu shaqadiisii iyo xilkii uu dalka u hayay uu ku waayey sidoo kale wasiir Omar oo isaguna dadaal badan geliyey in arrintaas laga aamuso laga joogsado intii arrintaas waxaa jiray kuwa kaloo ka maqnaa xilligaas yaa jiray dhammaantood intii ka xumayd iyo intii diidayba si gaara waanan u naqaanaa waanan u mahad celinaynaa mar kale iyo mar walba waxaan u mahad celinaynaa marka maxamed xuseen rooble oon leenahay ha jira magacaagu adiga xukuumaddaadu
ummadda Soomaaliyeed waxaad ka daaweyseen dhaawac khatara waxaad daydeen qulubtoodii waxaan jeclahay inaan si gaar ah aan u taabto sida oo kale dadaalka ra'iisul wasaaraha aniga waan is aragnay hadda ka hor waan filayay in uu arrintan ku maqan yahay laakiin caqabado badan iyo istaakulo badan oo loo dhigay yaa dib u dhac keenay inuu arrintan mar hore golaha wasiirada soo hordhigo uu ku tala gashana laakiin istaakul iyo xanibyo badan oo loo dhigay ayaa lugta jiidayay maanta